kusoo dhawaada saaxiibayaal qisadii jacayl ee maslax waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah sheekooyinka jacayl ee ugu hadalhaynta badan gaar ahaan baraha bulshada iyo bulshada Soomaaliyeed. Maslax ayaa la sheegay in uu ku dhex jiray xiriir jacayl oo uu dhigay tiirka ugu muhiimsan noloshiisa. Gabadhii oo jeclaa ayaa noqotay inuu u haystay in noloshiisa ay ku tiirsan tahay. Inkastoo faahfaahin dheer aan laga helin gabadhii oo jeclaa, waxaa lagu sheegay sababta kala tagga aysan ahayn wax si toos ah oo uga qayb qaatay, taasi oo murugada u sii badisay. Qisada Maslax waxay tusaale u tahay sida jacaylka u saameyn karo qofka noloshiisa, gaar ahaan haddii uu ka baxa xakamaynta caadiga ah. Maslax wuxuu ka dhigan yahay tusaale u baahan in bulshadeena si weyn uga qayb qaadato ka shaqaynta caafimaadka maskaxda iyo fahamka si loo maareeyo xaaladda murugada ee jacayl. Bulshada Soomaaliyeed waxay muujiyeen awoodaha midnimada in ay taageeraan qofka dhibaatada ku jira, taasi oo tusaale wanaagsan u ah isku xirka bulshada. Jacaylku waa dareen qoto dheer oo nafsadeed iyo shuruuc uu qofku u qaado qofka kale. Wuxuu noqon karaa mid saameyn ku yeesha maskaxda, qalbiga iyo nolosha guud ee qofka. Jacaylku wuxuu ka mid yahay dareenada ugu xoogga badan ee bini'aadamka. Jacaylka dhabta ah waa jacayl qoto dheer oo u dhexeeya laba qof. Badanaa waxa uu salka ku hayaa dareen isjiidasho iyo xiiso gaar ah. Waa mid ay ku jiraan qadarinta, daacadnimada iyo rabitaanka in la wadaago nolol. Jacaylka guulaysta waxaa lagu gaari karaa ayadoo labada qof si wada jir ah uga dadaalaan xoojinta xiriirkooda. Jacaylka guulaysta waxa uu ku salaysan yahay kalsooni buuxda. Labada qof in ay isku daacad yihiin oo ay iska ilaaliyaan khiyaanada ama beenta. Labada qof waa inay isu daryeelaan isla markaana isu muujiyaan in midka kale uu garab taagan yahay wakhtiga farxadda iyo wakhtiga murugada labadaba. Jacaylku wuxuu lahaan karaa caqabado. Waa muhiim in labada qof isu dulqaataan oo si wada jir ah uga gudbaan dhibaatooyinka soo wajaha. Muuqaalkeena maanta intaas way ku yahay saaxiibayaal, bal waxa aragtidiina halkaas oo soo wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.